ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ilaahay kusoo dhawaada channelka Suubiyan. maanta waxaan la qaybsanayaa cabitaan yar oo aad iyo aad mataqaana ilmaha ugu fiican maasha Allah oo ilmaha aan ku siista cashada ama qadada gaarta cashada aad ku siisan kartid. marka cabitaanka uun baan la qaybsan doonaa cuntada markale insha Allah. cabitaanka waxaan ka sameeyay waa liin caadi ah oo soo fiiqo soo hagaajiyay carrot aan soo dhaqay iyo strawberry raspberry berries all berries oo aan baraf ku soo bixiyay oo baraf leh iyo biyo cad iyo minti isku soo darsanaa insha Allah. waa cabitaan yar oo aad iyo aad taqaana fiitamiinaad u leh ilmaha aad iyo aad taqaana ugu fiican hadii Ilaahay raahdo. marka waa kana waa isla arkaynaa qaabkaan u diyaariyay insha Allah. bariska meesha ku shubay carrot iyo orange meesha waa ku soo darsaday biyo cad ku soo darsanaa iyo mintada hadii Ilaahay raahdo. marka waa kana mintada adiga xoogaa hal qaad ilaa laba qaad amal u baahan tahay maasha Allah. waxaan korana ku darahay waaye fruitkan sameynaya ama qudaartan waa wax mataqaana iyadoo iska macaan. kadibna biyo cad baan ku soo shubayaa intii blenderkan aan ku shiidayo uga qaado hadii Ilaahay raahdo. marka waa cabitaan yar aad fiitamiinaadkiisa u dhameystiran yahay qof weyn iyo qof yarna mataqaana anfacaya oo aad iyo aad u fiican xiliyadan lagu jiray waqtiyadan cabitaanka noocyadan oo kala refresh ku sameynaya aad iyo aad u fiican ilmaha deeta iyo dad waaweyn deeta labadaba. waa cabitaan yar aad iyo aad u fudud aadna iiso maasha Allah tabarakallah. marka waa kana cabitaanka waa soo shiiday kadib waxaan sameynayaa daaman soo shiiday inaan miiro baan rabaa. waxay yeelay strawberry iyo raspberry iyo all berries waxay leeyihiin waxyaabo yar yar oo inana ilmaha ma jeclo. marka qofka weyn oo kaleeto oo fiican tahay inuu isagoo iska miirin oo isaga cabo. laakiin maadaama aniga amaanta pointigeedu yahay in ilmaha siisto waa miiraya hadii marka qof weyn ku cabaysid caafimaad ahaan iyo calooshaada ahaan iyo hilda ahaan ku fiican iska cabtid oo iska miirin insha Allah. kadib waa kana ilmaha maanta uga faa'iideyso hadii caruur haysatid ama naftaada waa kaasa waa soo shiiday maasha Allah tabarakallah. cabitaan fresh oo adigu waxa ku tartay wixii shultay ogtahay inta soo gadan lahayd mid baakad ku jiro oo sameeyso midka freshka ilmaha maasha Allah tabarakallah. qadadan quruxda badan u diyaariyay qudaarta iyo chicken ka koobana insha Allah sidii aan u sameeyay cashadan ama qada ama casho kii aad jeceshahay uga dhigi kartaa ilmaha. marka maasha Allah tabarakallah qaabkii aan qudaartan iyo chickenkan aan u sameeyay ama ugu diyaariyay hadii aad ka heshay commentiga iga soo qor insha Allah. waa idin la soo wadaagi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo qaabka aan ugu sameeyay cuntadan yar ee mataqaana healthy insha Allah. waa kaasa walaalay waxaan idin la qaybsanayay cabitaanka yar ee aadka u fudud ilmaha mataqaana aad iyo aad ay u jecel yihiin ugana heli doonaan. marka waa kaasa ilmihiga caawishadooda maasha Allah tabarakallah. Ilaahay ha u barakeeyo inta haysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha siiyo idinkana uga faa'iideeyo ilmaha yar yarka inaad mataqaana cabitaan yar oo mataqaana maasha Allah tabarakallah iyo cunto yar oo healthy siisaan. kadib halkaas uga baxeynaa cuntadooda ilmaha. waxaan diyaarinayaa cashadii xaajiga iyo xaajiyada insha Allah si u diyaariyo ila sax. halkan waxaan ku haystaa chicken aan soo jarjartay si alla saartida u jarjar kartaa laakiin aniga maanta saan u jarjartay anuu igu diyaarsan yahay. waxaan kaloo haystaa coconut milk caanaha qumbaha iyo curry iyo mango curry basbaas iyo basal iyo barbarooni intaana haystaa iyo saliid olive iyo waxyaabo kale badan oo aan ku sii dari doono insha Allah arki doontiin. kadib waa kana intii ugu weyneed oo baan la share gareeyay. kadib waa kana digsigan dabka saartay aan maqli waxaan ku soo shubanayaa wax yar oo mataqaana saliid wax badan u baahnay wax yar u baahanahay. waa chicken yar waa casho yar oo maasha Allah tabarakallah oo healthy kadib waa kana waxaan ku soo darsanayaa basashii waxaan ku soo darsanaa hadii Ilaahay yiraahdo. waa kana kadib waxaan ku soo darsanayaa basbaaska hadii aad basbaaska jeclayn ama oo naxaajiga jeclayn ama adiga aadan jeclayn waa iska dhaafi kartaa. laakiin waa kana aniga basbaas la'aan badan ma jecel cuntada inaan sameeyo. chickenkii hadda ku soo daraa basbaaskii iyo basashii iyo saliidda suuga soo shiilmay kadib chickenkii aan ku soo darsaday. waa kana chickenkii wax yar oo cusbo baan ku daray wax kale ku daray cusbo yar oo meel dheer waliba aan aad iyo aad u badnayn
baan ku daraa. Marka chickenka cabaaraan rabaa inuu iisoo shiilmo dheecaankan yar iyo waxaan uu leeyahay oo dhan inuu mataqaanaa ay kasoo dhamaadaan aan isku dayo insha Allah. Chickenka waa kana uu isoo qalalay wuuna soo bislaaday si fiican uuna usoo shiilmay adii wuxuu soo noqday qayb brown iyo qayb cad insha Allah. Saan ka rabi waaye inuu aad kaaga wada shiilmana lama rabo inuu shiilmana waa la rabaa maxayro mataqaanaa brown yar oo qurux badan markuu soo noqdo baan mataqaanaa dafka u gaabinaysaa insha Allah. Marka waa kana wixii oo dheecaan ahaa iyo wixii oo kale oo dhan soo dhameystay diyaar u yahay. Kadib saan uu igu qalalan yahay waxbana ma laha ujeedaa. Marka waxaan sameynaa inaan ku darsado haddii Ilaahay yiraahdo caanihii coconut milkiga ahaa ama caanaha qumbaha oo qasi caddan waa ku wada daraaya insha Allah. Waa kaasa wax badan ma ahan intaas isku soo daray. Marka waa kana saana ku wadaaya masha Allah tabaarakallah. Saana ku wadaaya waxaan rabaa dabka inaan u gaabiyo oo dab yar oo aad iyo aad mataqaanaa u gaaban aan ku sameeyo daboolkiisaan saaraya dabkana waa u gaabinayaa. Kadibna cabaaraan ka maqnaanaa insha Allah isaga mataqaanaa tartiibtiisa u bislaanaya haddii Ilaahay yiraahdo. Kadib waxaan diyaarsanayaa isaga meeshaan ugu tagaya chickenka intuu caanaha iyagu dhexgalaya iyagu bislaanaya waxaan soo diyaarsanayaa haddii Ilaahay yiraahdo soos yar. Waad ogeydeen inaan chickenka wax mataqaanaa xawaaji iyo wax kale badan aan ku darin. Taas nuucineedu waxay tahay inaan hadda diyaariyo sooskii aan ku dari lahaa bal ila arag qaabka u diyaarinayo. Saliidaan maqliga ku shubtay aan birdaawada waxaan ku soo darsanayaa waa basal iyo toon iyo barbarooni aan isku soo shiiday. Basal xiro basal 3 xabbo toon iyo jab barbarooni greenka aan isku soo shiiday. Intaas ka kooban tahay digsigii ama maqligii aan ku soo shubtay masha Allah tabaarakallah. Caraf aan ku dhahay intaas wax kale lagu darinaa masha Allah tabaarakallah. Caraf waa yaabaysaa. Marka intaana waxaan rabaa cabaar yar inay mataqaanaa uu dabka ii saarnaato. Kadib waxaan ku soo darsanayaa waxyaabo yar yar oo kale haddii Ilaahay yiraahdo waa la arkaysiin wixii mataqaanaa kale aan ku soo darsanaa insha Allah. Marka dabka wax yar u sugaaya inay wax yar mataqaanaa ii qalaysmato basashan iyo barbarooniga iyo toonta aan isku soo shiiday. Waxaan rabaa wax yar inay mataqaanaa aan sugo oo ay shaaxida wax yar. Kadib wax yar kadib cabaar kadib waxaan sameynaa waxaan ku darayaa ginger shiidan waxaa waaye sinjibiil shiidan oo aad iyo aad u shiidan oo organic baan ku darayaa. Sinjibiil waaye sinjibiil shiidan aan ku soo daraa insha Allah. Waa kaasa sinjibiishii basashii iyo mataqaanaa toontii iyo barbarooniga shiidnaa saan isugu soo walaaqaya cabaar ayagana inay wax yar dabka ii saarnaan raba caraf. Soos yar waxaan sameynayaa bismillahir rahmaanir rahiim masha Allah tabaarakallah aad iyo aad carafta waa yaabaysaa ayaan ku dhahay masha Allah tabaarakallah. Ilaa wadaan siino siyaadinta aan haysanana si. Marka waa kana saana mataqaanaa sooska ku wadaaya iyadoo wax ku dhaafin daawo la soco waxyaabaha aan ku daraayo sidii aad u samaysatid haddii aad ka heshay oo hadhow dhihin waxaas muxuu ahaa kulli waa idin tusaa wixii aan mataqaanaa aan ku darsanayo haddii Ilaahay yiraahdo. Marka waa kana saana mataqaanaa aan cabaar yar eegina ku sii dhaafay. Kadib waxaan ku soo darsanayaa alaabtan kaleeto oo mataqaanaa iyadana xawaaji iyo waxyaabo isku shiishiidan dukaamada yaala sida kaariga camal baan ku soo darsanayaa. Digir iyo waxyaabo la isku soo shiishiiday ka kooban tahay. Marka waa tana kuuman aan ku qoran iyo xawaaji iyo wax la isku dardaro waaye. Marka waa kaasa alaabta intaana mataqaanaa aan ku soo darsaday ilaa 2 qaad camal adinka ka karinaysid iyo inta qof mataqaanaa u karinaysid ay ku xiran tahay inta mataqaanaa wax aad ku darsanaysid. Marka waa kana xawaayana aan ku soo darsaday hadda waxaan ku darsanayaa hot curry oo mataqaanaa xawaajiyo isku shiishiidan oo basbaas leh oo kulul baan ku soo darsaday 1 qaado. Kadib waxaan ku soo darsanayaa kale 1 qaado oo maangadan waxaa waaye maanka loogu talagalay waxyaabaha mataqaanaa chicken curry waxyaabaha curryga markaad sameynaysid ugu fiican tahay. Marka waa kana 1 qaado oo maangadan aan ku soo darsaday. Waa kana intaana haddana isku sii walaaqaa moor wax ku sii dartid waa moor caraftiisa masha Allah cirka iska sii martaan ku dhahay. Alaabtan waxaan ku dhahay masha Allah qurux saan iska aragsanay qurux badan tahay. Dhankeedana maxaa u malaynaa ana inay dhadhami masha Allah aad u macaan tahay. Waan healthy waan cunto caafimaad leh
qof kastana oo uu cuni karo, qof diet ku jira, qof aan ku jirin, qof walba wuu cuni karaa. Waa cunto healthy ah. Marka waa kana waxaan kusoo darsaday wax yar oo maraq digaag ah. Maraq digaag ayaan ka samaysan qudaarta waan isticmaalaa inta badan. Marka kaasaan kusoo darsaday. Waa kaasaa kadib waxaan kusoo darsanayaa wax yar oo filfil ah. Haddii aan u baahnayna waa iska dhaafi kartaa. Laakiin filfisha aad mataqaanaa cuntada u macaanisaa. Waa kaasaa intaana haddana cabaar aad dabku waa ii gaaban yahay, dabku inuu ku dheeryahay looma baahna. Haddii aad dabka isku dheeraysid wuu kaa gubanaasho hal mar. Waxaan dhankiisa iyo macaankiisa ma arkaysid. Marka dab yar oo mataqaanaa oo meel dhexaad ah oo aan cuntada mataqaanaa kaa gubeynin baa la rabaa inaad ku karisid. Marka waa kana saana mataqaanaa suugadan diyaar igu soo noqotay. Maasha Allah. Saana diyaar ku tahay. Carafteedana maasha Allah. Hora soo sheega waa la yaabaan ku dheh. Kadib waa kana diyaar ii tahay wax badan u baahno. Waxaan kusoo darsanayaa apple cider vinegar ama khalka cad ama ana khal oo haysatid ha isticmaali kartaa. Hal qaado oo khal ah baan kusoo darsanayaa. Khalala khalka haysatid ku darsan kartaa. Haddii aad rabina waa iska dhaafi kartaa. Laakiin tostiisina khalka. Marka waa kana hal qaado oo khal ah baan kusoo darsaday. Waxaan kaloo kusoo darsanayaa haddii Ilaahay yiraahdo wax yar oo maxaa la dhahaa malab ah aan soo qabsanayaa. Waa kana malabkaan aan kusoo darsanaa bis xogaa iga daatay. Adaan qaad camal la rabaa inaan mataqaanaa ku darsatid waa malab caadi ah. Marka waa kaasoo organic wax yar oo malab kusoo daray. Alaabtaan waxaan ku dhex soo tijaabi waa keeli doontaa anaa huba in aad keelaysid haddii aad soo tijaabisid qaabkaan u diyaarisid. Suugadii ama sauce-kii saas diyaar igu noqday. Waxaan kusoo noqonaynaa chicken-kii iyo mataqaanaa caanihii aan ku darnay bal meesha isla marayaan aan soo eegno. Waa kana diyaar yihiin ayagana maasha Allah oo isku soo huureen si fiican inuu mataqaanaa intaa ka badan dheecaanka oo iga gursadana ma rabi. Chicken-kuna horooba igu bislaa. Mataqaanaa marka waa kana qumbihii chicken si fiican isku soo dhex galeen caanihii qumbaha ahaa. Maasha Allah tabaarakallah waay. Kadib maxaan sameynaynaa? Waxaan sameynaynaa Ilaahay yiraahdo maadaama meeshii loogu talagalay inuu joogo inaan kusoo darsano suugadii ama sauce-kii aan soo diyaarsanay. Baan chicken-kii iyo caanihii halkaan inoogu karaay aan kusoo darsanaynaa. Ogow dabkuna uu ii gaamiyay dab dheer ma saarna cuntadaani because ready ii tahay. Ma baahna inay waqti badan ay sii karto. Waxay rabtaa kaliya in la oomati ay ku bislaato oo dab yar huuritaan la huurinayo ay ku bislaato biseer la rabaa. Marka waa kana war ma la wadaa. Waa kana alaabta waa isku soo dhex daray waa isku soo qasqasaa. Wax fiican isku dhex gelinayaa chicken-kii iyo sauce-kii ama maxaa la dhahaa suugadii aan soo diyaarsaday oo aan dhinaca kale kusoo diyaariyay. Waa kusoo daray si fiican aan isku soo dhex gelinayaa. Cashada waxaan ku dhahay maasha Allah waa casho yar oo aad iyo aad uga heli doontaan dhamaantiin. Aadna ay u fiican waan daboolaa waana ka tagayaa insha Allah. Diyaar ii tahay markaan. Waa kana cabaar kadib way isku soo huurtay. Wixii qudaartii wixii oo dhan way is dhex galeen. Saan quruxda badan ay noqotay. Kaal iska aragay noqotay maasha Allah. Cabaar kadib aan kusoo noqday saanay noqotay. Markaan dabku waa inaan ka damiyaa. Meeshii aan ka rabay ii joogtaa dhadhankeedii iyo wixii dhan aan u baahnaana waa top. Waa meeshii loogu talagalay. Marka waa casho yar waxaan ku iri fudud oo aad iyo aad u fudud aadna u macaan. Waa kana waa soo diyaarinaynaa insha Allah. Cashadii waa tanaa waan soo diyaariyay. Chicken-kii aan soo sameeyay waa kana saana kusoo diyaarsaday. Eshkaas mufad bronka ah baan geeska soo saaray iyo salad. Hadda waxaan ku iri kaal iska aragan ku dhahay. Qofka intaan u geysid waa ku duceynayaa ayaan ku dhahay. Yaa wax qurux ah maasha Allah tabaarakallah. Ilaa adaan noo siyaad intii aan haysanana sii laakiin runtii waa casho yar oo aad iyo aad u fudud aadna u qurux badan. Maasha Allahna healthy mataqaanaa wax oo hadda faa'iido oo ku jiraan aysan jirin. Marka aad iyo aad u macaan tahay aadna way fudud tahay ugu faa'iiday xaajigaaga iyo naftaada haddii Ilaahay yiraahdo waa taas cashadeeni ama chicken-keeni ay la qaybsanayo xalaal waxa rabtay aad ku cuni kartaa. Ani kaligiis aan cunay saladka iyo kaas kaliya maasha Allah isku yaa. Yaa eesha daartana waa saaran kartaa.
marka aad iyo aad mahadsantahay walaalay haddii ay tahay markii kugu horeysay aan soo booqato please hanaga ilaawin subscribe-ka inaan noo saartid. Assalaamu calaykum.